ummad Soomaaliya waan wada salaamay meel walba joogtaan caafimaad ku waara waxaanu ka hadlaynaa sida wada ogtihiin arrintii ku saabsanay Sharma Boy in loo qorsheeyay dil sidee loo dili doonaa yaase uu qorsheeyay ayaa is weydiinaysaa arrintan caawa ka hadlay dad badan ayaa ka xanaaqi doona dad badan bana aamini doonin laakiin runtu waxay tahay anigu kama hadlo mana soo gudbiyo waxa iska dhalanteeda waxaan raadiyaa sida hadalka dhabta iyo warka dhabta oo u dhacayo iyo meesha wax ka jiraan iyo aan xididada ugu hooseeyo ayaan isku dayaa inaan soo saaro biri waxaan ku dhigi doonaa aniga markay hawshan adiga gacanta laga saaro shalay baan kuu sheegay maalin hore ka soo hadlay waad aamini weyday waxa kaaga roon inaad hadda qaadatid warka aniga ku wado arrinta u dhacayso ayaan rabaa inaan isku dayo intaan ka ogahay aniga dad badan oo idin ka mid ah ayaa waxay ii soo direen muuqaal mise hees uu sameeyay loo bari ka hor ilka casa qays oo lagu karbaashayay Daahir Calasow dadka waxay dhahayeen maadaama ka hadlaysay hawsha Daahir Calasow ka soo horjeedid maxaad heesta reaction uga sameeyay anigu og ilka casa iyo Daahir Calasow waxaan xeerinayay ogitaankan ogahay iyo waxaan ka warqabo inaan heestaas reaction ka sameyn karin oo runta aan ka hor dhicin maantay ayay imaaday waa inaad ogaataa meesha ka hadlayo dilka aan maqashay ee loo qorsheeyay Sharma Boy waxa loo adeegsanayaa ilka casa qays heesaaga weyn ilaaba weyn waaxid ayaa kamida dadka la adeegsanayo si lagu soo xirigeliyo Sharma Boy ilka casa hadda wuxuu soo dhajiyay asagoo la adeegsanayo in show uu ka dhici doono Nairobi lagu heeshi doono fanaanin weyn oo wada imaan karin hal meel dadka maanta waaweyn oo caasana ka wada hal meel wada ka wada heesi karin oo nin walba asaga heli kara dadka intaas oo fanaan isku imaaday inta qof uu soo galayso hal fanaan oo kamid ah ayaa heli kara asagoo heli kara hal fanaan oo kamid ah dadka soo galay muxuu lacagta ula qaybsanayaa fanaaninta kale mis weydiisa adiga mis weydiisa hawsha meesha waxa fiican inaad xitaa daa waxda ogeyn inaad wax fahmi kartid ilka casa waxa la rabaa in loo adeegsado Sharma Boy oo iskaga dhigo inuu yahay xabiib ka soo horjeedo Daahir Calasow runtu taas ma aha waxa soo gelin doontaa meesha gabar buu guursaday iyo in kastaan aniga dumarka aan ka hadlin waxaan ogahayna aan uga hadli karin hawsha maanta jirto inaan dumar faraha la galaan diidayo ayaan guurkaas raba inaan ka hadlin laakiin waxaan kuu sheegayaa runtu waxay tahay ilka casa wuxuu ka mid yahay dadka ku shaqeeya Daahir Calasow ku shaqeysanayo ayuu ka mid yahay heestan hadda balhaysa ila dhigayso masi badalka intaas ugu goynaya maxaan reaction uga sameyn waayay waxaan ogaa inay heestan tahay hees ee Daahir Calasow uu ka codsaday ilka casa inuu soo qaado iska dhigo in Daahir Calasow iyo ilka casa isku dhacsan yihiin si uu Sharma Boy ku aamino wayna fahantaa meeshan ka hadlayo heestan waxa loo qaaday Daahir Calasow lagu karbaashaya waxa la iska dhigayaa Daahir Calasow iyo ilka casa inay laba nin oo istirsan yihiin si lagu soo xirigeliyo Sharma Boy saacadaha nagu soo aadan ugu yaraan ugu badnaan 3 bari kadib hadduu caawa bari subax duulin waagu markuu bariyo qays ilka casa qays hadduu soo duulin oo magaalada Minnesota ka bixin oo Nairobi aadin asagoo la shaqo geliyay inuu soo xirigeliyo uu sii dhawaado Sharma Boy hadduu sameeyay waxa sheegayo waxba ka jira waxa la adeegsanayaa ilka casa wuxuu isku dayaa culeyskiisa ugu badan saari doona wuxuu mar dhowna soo dhigi doona ogaada inuu ilaa waliba hees ayaan wada qaadi doonaa aniga iyo Sharma Boy ayuu soo wada eraya ah inuu ku hadaaqo marka dilka maqasheen uu ka badbaaday ninka leeyahay Sharma Boy waa hawshan dabinta loo dhigay waliba uu dhigayo laguna shaqeysanayo ilka casa qays waa inaad ogaataa hawsha meesha iska hayso dawladda waaweyn oo Uganda iyo Kenya kamid ah ayaa waxay ummad Soomaaliyeed u soo adeegsanayaan madax hore oo Soomaaliya xil ka soo qabatay inay ummad Soomaaliyeed intii ka soo horjeedo oo wax tahansan lacag la siiyo oo la iskaga dhigo in la yiraahdo waxaan ka rabnaa in lacag ku siino oo adiga ereyada rabno noo tiraahday laguma dhahayo ka hor imo qabiilkan saa samee laguma dhahayo waxa lagu leeyahay ereyada aniga warkii soo gaaray lacag baa lagu siinayaa ereyada dhehaysid hawshaadii waa wadanaysaa xor baa tahay kaliya waxa lagu weydiisanayaa muuqaalka aad soo dhigaysay ereyada dhehaysid in wax lagu yeesho kaas oo dhaawac weyn ku ah kana hadba soo wacay kaas oo dhaawac ku ah
in aad dadka Soomaaliyeed isku dirtid Uganda iyo Kenya iyo waliba Ethiopia meesha kama maqan waxay rabaan inay sameeyaan in ummad Soomaaliyeed qabiil iskugu dilaan sidii wariga sodonka sano iskugu dilayeen in qabiil ummad Soomaaliyeed loo kala qaybiyo ayagu si uu xukumiyaan dadka Soomaaliya waa kala qaybi oo xukun ayaa ka socota idinku waxa artaan dhalanteed ayada u artaan inaan soo dhigayno muuqaaladan ayaa u artaan dad baa la adeegsanaya dawladda adeegsanaya gacan naga xoog badan baa ku jirta gacan aan maartay naga lacag badan baa ku jirta dad naga aqoon badan baa ku jira hawshan ay u artaan inay tahay Sharma Boy iyo Daara Calasow iyo social media waa ka weyn tahay hawshan waa hawl intaas ka weyn waxa ku jira dawlado waxa loo baahan yahay ummad Soomaaliyeed in la isku diro meesha iyadoo qabiil oolina aad u jeedid ayu waxa lagu leeyahay reer hebel baa isku social media reer hebel goorma social media ka dagaalami jiray goorma social media ahaan jirtay meel reer hebel isku haystaan oo la kala xoogaayo waxa ma jirto dadka Soomaaliyeed waa marxabaabinaya dad baan loo adeegsanaya qabiil baan rabaa in loo bedelo hawshan waa inaad ogaataan haddii tahay qof bini aadan oo aqli badan oo Ilaahay karaameeyay waa inaad iska ilaalisaan dadka Soomaaliyeed ee la soo adeegsanayo ee raba inay qabyaalad isku kaayadiraan meesha waxa la adeegsanayaa dad waxaan rabaa cidii hadlayso Soomaalinimo ku jirto bal waxa fiirsaa Sharma Boy deeq darajo gabadhii ayada ahayd la sheegay magaceeda ma xasuusto intuba ayuu kala qabiil ay isku xiran yihiin la kala furfuri waayo dawladdu waa ka carooday wallahi dadkii raba in la isku adeegsado Sharma Boy iyo deeq darajo oo faranti aha ayaa la rabay in laga bilaabo hawshan way si ballaaran lahayd laakiin deeq darajo iyo maxaa la jiray Sharma Boy waxay gaartay heerkooda inay isku dhintaan dhimasho ayay gaartay hawshoodu waa la kala furfuri waayo dawladda ayaa ka carooday sida aniga soo gaartay dawladdu waa weyn ayaa ka carooday hawshaas oo arrintii rabeen u socon weyday waa inaad ogaataan meeshan ka hadlayno waa inaad ogaataan hawshan meesha loo wato hawsha inta waa ka sii ballaaranaysaa sida wada ogtihiin ninkii la dhahayay Axmed Rashiid maxkamad ayaa loo ballamiyay asagana dawladda Kenya ku jirta waxa soo galay governoradii Kenya ayaa soo gashay hawshu waa si adkaatay way si ballaaranaysaa waxaanu filaynaa in haddaan nahay dadka wadaniyiinta ee Soomaaliyeed ee marba xaq ummad Soomaaliyeed u soo gudbiya inaan ka rayn doono cadawga ummad Soomaaliyeed soo adeegsanayso dadka Soomaaliyeed afka nala haysto qabiilka nala ah inaan ka rayn doono bargoorma isku yimaadeen Doqbilow iyo Daara Calasow inay lacag qaatay maqtasaya Doqbilow iyo Daara Calasow maanta waa isku bow doonbay wada saaran yihiin Daara Calasow iyo Doqbilow isku doonbay saaran yihiin waa dad hal meel lacag laga soo wada siiyay waa inay aragtaan ninka leeyahay Captain Ayub maanadu waa galay dhiiqadii lugaha ayuu la galay intii raadinayay ayuu sameeyay ogaadeen ayuu ku soo tufay hawsha waa inay aragtaan kadib waa la xariiray hoos baan kala hadalnay runtan u sheegnay waxaan u maleyay in raali geli soo dhigaan ayaan jecelahay Soomaaliya ha noolaato cadawga oo ka guulaysanayna Sharma Boyna wixii runa way gaartay mana imaanay Nairobi hawshan dilkaana uu ka badbaaday Soomaaliya ha noolaato